maxadka Al-Jazeera oo lagu barto luqadda af Carabiga ayaa xaflad ballaaran u qabtay ardaydii sanadkani ka qalin jabisay maxadkaasi oo ku yaala magaalada Burco. Mas'uuliyiin ka socotay dawladda iyo jaamacadaha gobolka Sheekh Cali Mahdi oo ka socday shirkadda Telesom, waalidiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa ka soo qayb galay xafladda maxadka Al-Jazeera uu qabtay ardaydani maanta ka qalin jabinaysa. ardayda qalin jabinaysa oo gaaraya 88 arday oo dhamaysatay heerarka kala duwan ee maxadkaasi sida uu ku warbixiyay maamulaha maxadka Al-Jazeera Sheekh Aadan Cabdillaahi. ardayda maanta halkan ka baxaysa maxadka ka qalin jabinaysa oo ardayda hadda halkan fadhida 35 arday oo shahaadad dibloma aanu siin doono. ardayda kale oo 53 arday oo iyagana waxa weeye naqli oo aanu siin doono waxa weeye shahaadada ay ku soo gudbeen heerka hoose kaga soo gudbeen. waa munaasabad markaa sida isu xambaarsan ardaydan muddo 2 sano ayay soo dhiganayeen luqadda soo diyaarinayeen. dufcadan maanta qalin jabinaysa waa dufcadii afraad weeyaan 2013 bisha koobaad ee January ayaa markaasi la aasaasay macadka. ujeedka iyo hadafka loo aasaasay waxay ahayd horumarinta luqaddan af Carabiga. maanta runtii waxaan tahniyad iyo salaan u dirayaa guud ahaan maxadka Al-Jazeera, gaar ahaan talabada khariijiinta ee markaa maanta xafladooda aynu halkan insha Allah taala u joogno. anagu jaamac ahaadna waa kula shaqaynaynaa, shirkad ahaanna waa kula shaqaynaynaa. waxa la leeyahay wixii tiknoolajiyada aad nooga baahatay diyaar baan ku nahay insha Allah taala. oo haniyeynayno oo bogaadinayno oo hambalyeynayno ardayda maanta qalin bedelatay. ilaahayna waxaynu weydiinaynaa waqtigii qiimaha badnaa ay ku bixiyeen tacliinta luqadda Carabiga ay ku bixiyeen in Ilaahay ka abaal mariyo. waliba waxaanu si gaar ah macadka u siinaynaa insha Allah ardayda maanta baxday 3 arday oo kamida oo scholarship ayaanu u ballan qaadaynaa inaanu siin doono insha Allah. ardaydan sharafta leh ee ragga iyo dumarkaba leh ama wiilasha gabdhahaba leh ee horteeda fadhiya ee qalin fulinaya ama qalin jabinaya runtii sharaf bay noo tahay. marka hore waxaan leeyahay rayaal iyo awoowayaal iyo abtiyaal hambaliyo. ilaahay cilmiga aad barateen haydu ku anfaco. oo hambaliyayno ardayda waxa weeyaan dadaashay juhdiga iyo tacabka bixiyay. insha Allah waan soo dhaweynaynaa, aad baan idinku mahadnaqaynaa. sheekh aadanna waxaan leenahay sacyigaaga fiican aad samaysay, halka ka sii wado dadaalka sii ballaaray. waxaan aad iyo aad u hambaliyaynayaa, u soo dhaweynayaa, uguna ducaynayaa dhammaan bahda Al-Jazeera, maamul iyo macallimiin iyo arday iyo waalidiin dhammaantiin aad iyo aad baan idinku ducaynayaa oo idin soo dhaweynayaa. barakallahu fiikum. ugu dambeyntiina maxadka Al-Jazeera waxa uu halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyay 88 arday ee dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada maxadkaasi. Xabiib Ciga Xasan, Hoon Cable TV, magaalada Burco. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaan u hadalaa, isku sina waan u labisanaa, isku midna waanu nahay. anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. war ma ahayn run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.